dhammaan dadka qaxootiga ah ee ku dhaqan waddankan South Africa ayaa waxaa soo food saartay cabsi aad u xooggan. Dadkani oo Afrikaan u badan ayaa waxay walwal ka muujiyeen xaalkooda sida uu noqon doono haddii ay soo idlaadaan cayaaraha adduunka. Qaxootigani oo ay Soomaalida ugu horeyso ayaa waxaa loogu hanjabay in dil iyo boob loo geysan doono haddii aysan dalka isaga bixin inta aysan dhammaan cayaaraha adduunka oo ay ka harsan tahay 8 maalmood oo kaliya. qaar ka mid ah dadweynaha Soomaalida ee ku dhaqan waddankan South Africa ayaa waxa ay TV-ga Universal ugu warbixiyeen in loo geystay digniino isugu jiro af iyo qoraal intaba. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waxa Ali Axmed Jali waxaan aniga ganacsada Soomaaliya waxaan ku noolaa gobolka Western Cape qaasatan degmada Leicester. waxaan si aad walaal uga walwaleynaa amba oo cabsi qabnaa waxaan dad Soomaaliya oo haddana iskood u shaqeyso iska qaxooti ah waxaan si weyn cabsi uga qabnaa oo qalqal oo nooga jira dhibaatooyin cusub oo ku soo kordhay goboladan aan hadda ku noolnahay meelaha location-ka dadka madowga ay degan yihiin waxa si badan la kordhigal haya ay nagu hadal hayaan ay seen nagu yiraahdeen waa la idin dhacaya waa la idin baba after world cup waa naga bixaysiin annaga waan idin nacnay wadankii waa idin ka nacnay anagana intaas bari bay noo tahay dad waxaan qaxootiyo oo iskood u shaqeysta oo irsaqraadisa oo masaakiin wadankooda dhibaatay iyo problem uga soo carar qaasatan kuwa ganacsatada ah ugu sii daran oo kuwa ganacsiga meelaha kulul waxay ku leeyihiin waa bixaysiin oo bay dilayna kalkan hadii marka hore xenophobia kaliya markaan waxaan idinku dareynaa dil siyaadan badib ugu soo noqono horta marka ugu horeysa ma aha mar ay nuu suubinayaan goodinta iyo cagajugleynta mar walba waayo dad macnaha mar walba markay ciyaaraha markay dhacaan waa bixi doontaan bay nagu hayaan ayagoo aysan ahayn ciyaal dad waaweyn wax kasto ayadoo dadka habeenada badan inta badan ay u soo galaan oo maartay tuugada ay dilaan ama ay dhaawacaan ama ay maartay ku dilaan dalka already waxay bilaabeen inay dukaamada ii sheeg dhacaan sheeg wadada ku gubaan already calaamadii iyo fidnadii iyo foodadii waa bilaabmataa la dhihi karaa. sidoo kale dawladda South Africa ayaa diyaargarow xooggan ugu jirta sidii looga hortagi lahaa arintaasi. waa kan Mahad Cumar Cabdi oo ah isku xiraha jaaliyadaha Soomaalida iyo dawladda Koonfur Afrika oo arintaasi aan wax ka weydiiyay. walaal su'aashaad waxay ka weydiisay waa arin aad iyo aad la isku dhex maray suuqa laakiin markaan la hadalnay dawladda waxay noo sheegeen in ay arintan maartay diyaar galow ballaaran ugu jiraan maadaama ay dawladdu sheegtay in arintan ay u diyaar garoobayso tii horna ay kuwaana qaadatay waxaan kala hadalnay ama kala sharnay rag aad u fara badan oo mas'uuliyiin sarsare oo wadanka ka tirsan waxayna noo sheegeen noona ballan qaadeen in ay maartay sharciga tiigsan doonaan gacan bira ku qaban doonaan military iyo police gaar ah oo tababaran arintan inay sameeyeen diyaarna u yihiin maartay in wax alla wixii arintaas ku falka ku kaca aysan maartay u dulqaadan doonin. عبد الكريم مرسل فراح Universal TV Cape Town.